بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. وعشركii siirada إن شاء الله تعالى waxaynu ka gaarno wala waqtigu daahsan yahay ayaynu aqrin doonaa waxaynu dhimanaadan إن شاء الله usbuuca dambe ay noqon doonto haddii alla yiraahdo oo idaaradda iyo maamulkuna go'aamiyaan inay sii socdaan. waxaa ugu dambeeyay cashirkeena sanadkii shanaad ee hijrada gabagabadiisaynu shalay ku joojinnay oo ay halkuu yidhi sanadkaas baa madiina dhulgariir ka dhacay. dabcan dhulgariir hadda xilligan waxaa lagu qiimeeyo ee qiimaynta iyo cabiraatan rekhtarka la yidhahdo ama rektarka la yidhahdo ma jirin, laakiin dhulgariirun xoog badan oo taariikhda galay buu ahaa. kadib waxaynu soo gaarnay asana asaadisa min alhijra, sanadkii lixaad markii uu dhashay. wa fiiha 28 xadathan, 28 arrimood baa dhacay ama ugu waaweynaa waxyaabihii dhacay. wuxuu yidhi wa fi lmuxaram, bishii muxaram ee sanadka ugu horeysay min haadihi sanati, sanadkaa lixaad ahayd ayay kaanad ahayday dhacday sariyatu muxamed ibni maslama radia allaahu canh. saxaabigaas oo ah ninkii kacb ibn ashraf loo diray ee soo diray, nabigu wuxuu diray ila alqartaa, qoys reer qarta la dhihi jiray oo qabiilkii weynaaya hawaasin ka mid ahaa oo qayb ka mid ahaa. waxay ahayd muhiimad aada u kooban, 30 bay ahaayeen ciidanku, 30kuna farday saaraayeen. maalintiina geedaha iyo gebiyada godadka hoostooday geli jireen. waddankana si fiican bay u yaqiineen, habeenkiina waa la socon jiray marka la kala seexday cagtu degto. meeshii way tageen, waxoogay bay soo bajinayeen, wax kaloo badan ma jirine in qolyo meelahaasahoo hadal laga sheegay laga soo nixiyaa la rabay, oo laga soo yaraa nixiyo way kala didideen, kadibna nabad bay ku soo laabteen. muxaram hadday dhammaatay, bishii safar waxba ma jirin. wa fii rabiici alawal, bishii mawlido min haadihi sanati, sanadka lixaad ahaydi, kaanad iyadana waxaa ahayd sariyatu cukaashata bni muxsan alasadiy ila alkamri loo diray. waa ciddooda cukaashata bni muxsan waa ninkii nabigu markii uu yidhi 70 kunoo waxaa jiri doonta ummadayda jannada geli doona biduuni xisaabin walaa ciqaab, xisaab la'aan bay geli doonaan. ninkii durbo gacanta taagay rasuulka ilaah ii bari inaan kuwaa ka mid noqdo, ee nabigu ka mid baata. nin kale istaagay oo yidhi anigana waxaa cukaasha kaaga horreeyey, booskaa waa buxsamay hadda bas khalaas. reer bani asadka uu ka dhashay yaa meesha kamri la yidhaahda degi jiray. isaguna dad badan ma wadane, way is-uruursi bay bilaabeen reer bani asad. meel madiina waxoogay ka fogna way ahayd. is-uruursi iyo hadalaa ka soo yeeray iyo ciidan inay uruursanayaan. kadib sikadiisa buu ciidan 40 isagoo wata oo fardoolay ah buu sikadiisa ku baxay oon la ogeyn, iyagoon iska filaynin baa meelay deganaayeen buu dul degay. waa la kala cararay marka, nin walba cagihiisuu maalay. naf hadday timaadana dee xoole iyo ilmaha meesha jooga lama yidhaahda, taada markay timaado qof walba halkaa hortiisunbuu carari. waa la kala cararay. fahanimuu xoolay kasoo qaateen, wa rajacuu saalimiin, iyagoo nabadana way soo noqdeen. 100 geelay soo dhaceen. halkii waxaa looga cararay 100 geela, 100 geelana waa soo kaxaysteen. wa fii rabiici alaakhir, bishii ku xigtay bisha mawliid oo min haadihi sanati ka mida,
kaanad waxaa iyadan ahayd oo mar kale nabigu uu diray sariyata Muxamed ibni Maslama ilaa Dilqasa meel la yidhaahdo uu diray. wuxuu ahaa ciidanku watay 10 nin bay ahaayeen, waxaana loo diray 2 qoys oo meelaha bal inay ka soo yarbajiyaan oo bani Thaclaba iyo bani Cawaa la yiraahdo. xogtoodii baa la helay marka, waa laga dignin helay. ciidan ilaa 100 dhan baa loo diyaarsaday, hareeraha laga maray. raggii waxaa ka soo badbaaday Muxamed ibni Maslama oo dhaawac ahaa. inuu dhintay bay moodeen, lugtay ka haraatiyeen, maanu isdhaqaajin, waa lisaga tegay, meyd baa looga tegay. kadib nin muslimiinta oo safar ahaa baa soo maray meeshii ragga meydkoodii, uu gartay raggii marka buu istirjaacsaday, inna ilaahi wa inna ilayhi raajicuun buu yidhi. markuu Muxamed ibni Maslama ninkii maqlay dhegta wuxuu ka gartay muslim inuu yahay, wuu isdhaqdhaqaajiyey. marka ninkii baa soo qaaday oo dhaawiciisii Madiina keenay. 10koodii Muxamed ibni Maslama oo dhaawac lagu soo qaaday baa soo badbaaday, 9kii kalena waa dhinteen. wa fii rabiici al-aakhir aydan isla sanadkaas oo min hadii sanadkii ka mid ah, isla bishii lafteedii warkii Madiinada dhaawacii markii la geeyey yuu nabigu wuxuu soo diray kaanad ahay sariyatu Abi Cubaydata bni al-Jarraax. Abu Cubayda ciidan loo soo dhiibay, nimankii raggan laayay baa la soo aaday. ilaan dhiig baa ku maqan raggaase ilaa Dilqasa loo soo dhiibay. iyagii war waxaa soo gaaraya nimankii aad layseen duulaan xoog badan baa idinku soo baxay. way kala carareen firxad. waxaa nimankii oo niman gacan kulu leh, dee farahayna saaraan waxba inaga fakan maayo. wax dhiba lamuunan kulmin, iyagiina way kala carareen. xoolo laga cararay oo laga tagay laga tago la sugi waayena xoolihii buu soo kaxaystay, isagoo nabadana waa soo laabtay. isla bisha wa fii rabiici al-aakhir aydan min hadihi sanati kamida bay kaanad ahayd sariyatu Zayd ibni Xaaritha radia allahu canhu wa ardaah ilaa bani Sulaymin baa loo diray oo biljamuum. jamuum waa meelaan Madiina ka fogayn. markaad Maka Madiina ka soo baxdo durbo waad arkaysaa jamuum meeshay ku taallo. iyagana markay dhexda marayaan oo laga kala dhuuntay bay qof dumar oo Xaliima la yiraahday meesha ku qabteen, meel ku qabteen. iyadu reerahan reer bani Sulaymaynan ahayn, qola Musayna la yiraahday ka dhalatay. waxaa la yidhi away dadkii meeshan deganaa reer bani Sulaym xaggee aadeen? waxay tiri war uma hayo. bal waad u haysaa, waad og tahay, dambay kuu tahay ma sheegi. waxay tiri waan idiin sheegi, laakiin shardi inaan in lay nabadgelin waxba la yeelayn. waxay dhahaan waa ballaman kaa qaadna, waxba lagu yeeli maayo. way kaxaysay. iyadana reerkanaa qabay, reer bani Sulaymka gabaray qabeen bay ahayd. gam reerkii waa lagu degay, xoolo iyo dad baa la soo kaxaystay. ninkeedii baa ku jiray iyo neefafuu lahaa. intaba dadkan la soo qabtay ku jireen. goortii Madiina la keenay, nabigana loo sheegay sallallahu alayhi wasallam, iyadii iyo odaygeedii iyo xoolahoodiiba wuxuu yidhi u sii daaya. mar hadday idin tustay odaygeedii iyo xoolaheedii u sii daaya. waxaa leeyahay waxaaga kaxaysa iska soco, adiga odaygaagu waa fasaxantihiin, orday waa idinkaas. wa fii Jumaada al-uulaa, bishii Jumaada al-uulaa marka la gaaray ku xigtay oo min hadii sanadkii ka mid ahayd, mar kale kaanad waxaa ahayd sariyatu Zayd ibni Xaaritha. mar labaad la diray, bishii labaadna waa la diray. ila al-Ciis, deegaanka Ciis la yiraahdaa loo diray iyo qabaa'ilkii degayay. ujeeddadu waxay ahayd iyaga looma soconin. deegaanka Ciis ee loo socday qabaa'il looma soconin. niman reer Quraysha oo safar ka yimid oo intay Shaam tageen soo adeegay baa xogtooda la helo xagga maraya. 170 nin buu nabigu u diray oo wada fardoolaya dheeraynaya, gaadiidkii dagaalka wataa loo diray.
nimankii meeshii baa loogu tegay intoo qaybna way carareen wixii xoolo ahaa iyo qayb dadkii waday ahaana waa la soo qabqabtay madiina la keenay dadka la soo qabtay waxaa ka mid ahaa abulcaas ibn rabiic zaynab binti rasuulillaahi ninkeedii baa ka mid ahaa ninkii qabay ee carruurta u dhashay baa ka mid ahaa dadka ganacsigan tijaaradan wadaye la soo qabtay markii la keenay zaynabu la xiriiray wuxuu yidhi daadixaajada way xun tahay inaad magangeliye isiiso adiga ergeysaan rabaa salaad subax marka la tukaday bay masaajidka intay soo istaagtay waxay tiri war ninka odayga ana nabadgeliyaduna waa horay timid nabigu ma ogeyn lamana wargelin lalama tashan nabigu waa Allah wuxuu yiri ma ogeyn laakiin qof muslim qofku magangeliyo leh sidii baa ninkii lagu fasaxay oo isagana lagu cafiyay wa fi jumada alula aydan isla bishaas oo min hadii sanati kamida yay kaanad ahayd ghazwatu bani lihyan binaaxiyati cusfaan dhinaceeda cusfaan waa meel maka agteeda halkaas la soo aaday falam yalqaw ahadan idna lama kulmin nimankaasi waa nimankii daati rajiic ragga waxoogayga ku laayay ragga dhowrka ila todobada ku laayay laba ninna qarab quraysh ka gaday oo rag loo dilay qoladii warkii bay maqleen way kala carareen 200 oo ciidankuna 200 oo nin bay ahaayeen firxadkay kala firxadeen waxba lama arag halkii baa la degay nabigaana ciidanka hogaaminay sallallahu alayhi wasallam halkii baa la degay 14 maalmood baa la deganaa tuulooyinkii ku hareereysnaa intay daaqsin la gaari karay maka agagaarkeeda ciidan loo diray saa u soo yar kormaray baa waxoogay la soo kala shaandheeyay kadib uu soo noqday nabigu sallallahu alayhi wasallam bishii xigtay wa fi jumada al-aakhira min hadii sanata kamida bay kaanad ahayd sariyatu zayd ibn xaaritha markala la diray sooraymaan idin soo dhigay ninka u badan ee hawlaha gaagaaban loo diro waa zayd ibn xaaritha markii saxaabada nin la yiraahdo ila taraf meel la yiraahdo loo diray qola reebani thaclaba la yiraahdo deganayd oo kamid ahayd qoladii ragga 10ka intay laayeen maxamed wasalaam dhaawac la soo qaaday bani awaali bani thaclaba ay ahaayeen way kala carareen ciidanka la dirayna ciidan badan ma ahayne 15 nin baa la diro habeena laakiin iyagii waxa gaaray ciidan xoog badan baa idin ku soo baxay waa la kala firxaday 12 neef oo geela 20 neef oo geel iyo waxoogay ari ah oo ka carareen baa la soo kaxaystay markii ciidankii soo gadoomay bay xogta heleen inuu rag tira yar yahay ay ka carareen ay moodayeen ciidan xoog badan waxay dhaheen warayno aynu ka daba tagno isoo abaabuleen ka soo daba duuleen طبعا زيد uu ku talagalayay isaguna markuu soo dhaqaajiyayba maba hakaynba meel lama fariisanin habeen bay hayday soo socday waagaba Madiina ugu bariyay say u soo socdeen Madiina ku soo dhawaadeen waxay dhawl ciidan kale iyo bala kale inaga hor iman doonte kuwaasi tagay in celiye halkaas ka noqdeen way soo gaari waayeen وفي جماد الآخرة أيضا ومن هذه السنة كميدة صعد وصل نقضي حول كعبان ويربي هيدا كانت سرية زيد بن حارثة هذا عيدا يرلو ديبي وحاله صعد وصل دقي هوشا حول كعبان كسو قولي ستيه هل كنات وحال الله دري إلى حسمة قول لي يرهده قصده وحيا هيد النبي عليه الصلاة مركي وسند كل حاد وفود أدري بدولته يا بقرطويين دوني كشري حلقاس بوراقية فريمة وذا دري والدين تكون جالسين الإسلام كقاتل له رجل دري دي حيتمني خليفة الكلب باكمدها ونك أنت بدن جبريل الصورة دي يسوي كيسين شري والصحابة نك النبي قال لا تاجن دي هي مودي شري واحد نكاسو حلو دري نمك قيصرية ذا هاي رومان كان يوروبيانكي لبا يهايان بقرطويه لهايان oo labadaba kristan ahayd midii bari iyo midii galbeed ta galbeed saldhigeedu
wuxuu ahaan jiray magaalada waagii koowaad Byzanta la dhihi jiray markii labaadna Constantinople loo bedelay haddana Istanbul la yiraahdo waqas saldhigooday ahayd kadib diinhanna waa tan Vaticanka laga xukumay waay tan barina dhinacan Russia ay ahayd oo qaysariyadii nimankii la dhihi jiray qayaasirada waay boqortooyada aha isaga kuwii bari baa loo diray waraaqdii buu geeyay waraaqdii waa la akhriyay hadiyadna waa la soo siiyay waan ka fikiraynaa wadi lagu soo diray oo iska noqaalay ninkii dixiyaha markuu aagan yimid qolyahan xisma ay degan yihiin dhowr nin baa hareeraha ka istaagay isagana waa la garaacay wuxuu wateen waa laga qaatay markuu ka soo tagay qolyadii uu ka dhashay qayb kamida ogaaday ciidan bay bixiyeen qabaa'ilkoodii nimankii bay ka daba duuleen way ka soo qaadeen waxay xoolo ka qaateen iyagina way iska daayeen nimanka laakiin dilay waxa hogaaminaya koox bay ahaayeen Hunayd iyo la yiraahdo wiilkiisii yaa kamid ahaa qadixiyo waa tagay arintii uu nabiga gaarsiiyay sallam ciidan degdeg ah la soo raaciyo meeshay galaanba kuwa ka daba tagay saa yeelay waa laga daba yimid marka ninka la yiraahdo 500 nin oo ciidan la soo siiyay hadda ciidanka hadda Zayd ibn Haritha wata markan dambe 500 nin oo ciidan uu wata waa ka daba yimid waa soo gaaray horta ninkii odayga ahaa iyo wiilkiisii burcad hogaaminayay labadiiba dhulku dhigay waxa laala waxay xoolo haysteenna waa ka soo kaxaystay kun neef oo geela iyo 5,000 oo ari ahna reerihii waa ka soo kaxeeyay waa ka soo qaateen dad maxaabiisana waa ka soo kaxeeyeen ciidanku watay hadda waa ciidankii 10 geeshay maahane 500 nin oo ciidan u wataa iyagiina inta kale waa firxadeen ninba reeruhu iyo qabaa'ilku ku carari kare ku biiri kare ku biiray وفي رجب من هذه السنة كمذا مركلة جماد الآخرة مركلة دماتي بشي رجب زيد لبنا سن كانت سرية زيد بن حارثة هدان الله ديري إلى وادي القرى قل ذي الريف الزارة عيانة بن حسن الفزاري نبغو مركو دومة الجند الكسر نقضي هشيسك ولقري تشري أي الله ديري قل هذا الصبح وغي نبيو فتقل لي قال لا سب الله ذي بالله ديري مصنف كان يسقو وحيري فلم يلقى كيدا واحد معرك لكن كتبت التاريخ يسير وحيو بدنيهن إني دقال هذا قبصدي رق بدن اللي قال لاي زيد لفتي سنة صار عوامي صاصي كتبت التاريخ انت يقول يعني يسير ذو بدنيهن لكن مصنف كان يحيري وحبلايا ما ينعرك رجب هذا دماتي وفي شعبان من هذه السنة ديك زيدها بشان شعبان داوع با ku yaalo ma bixi karo كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دوبة الجندل لو ديري دوبة الجندل marka loo diray ciidan xoog badan buu haystay ilaa 700 ciidan ah ayuu haystay hadaba degdeg ma qabtide waxa la yiri kordeg markaad kordegtana 3 maalmood diinta ugu yeero war islaamka qaata ku dheh hadday 3 maalmood kadib ka diidaan ku gaacay wax baal weerar ah dhinac kaga qaado food ka maleeg baa la yiri waa soo baxay soo duldagay 3 maalmood ayuu diinta gaarsiinay waxa islaamay oo diintii qaatay nin labadaba uu ahaa nin iyaga boqorna uu ahaa kaahinna uu ahaa ee u faalin jiray xagga faalinta iyo wadaadeyntana isaga u ahaa xagga boqornimadii iyo maamulkana isaga u ahaa ninkaas Alasbaq ibn Amr al-Kalbi la dhihi jiray oo boqorka reerka ahaa baa islaamay isaga hadduu islaamay intii kale maxay sugayaan islaamkii bay qaateen waxay yiraahdeen dad diintana baraan rabnaa Abdurrahman ibn Auf intuusan meesha ka soo tagin nabigu la soo xiriiray oo wuxuu yiri reerkeen aan la xididaan rabaa daba uu soo jawaab wuxuu yiri hadaad la xididayso ninka ugaaska ka guurso yiri duqi asbaqaha gabadhu dhalo tamaadir la dhihi jiray ayuu Abdurrahman ibn Auf guursaday
reerka si fiican gacanta loogu hayo qoyska madaxtooyada iyo aqalka madaxtooyada gal baa leeyahay halkaas baa caga dhigatay وفي شعبان إسلا شعبان ومن هذه السنة كمدة كانت أهيد سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب باهدنا الله دري إسلا بشاس إلى بني سعد بن بكر بالله دري بفدك ميشا اللي لا تشوغا فدك ومليار أو خيبر هوس إيمانيسي هذا يسكب بعضه ودول الإسلام يسكب بعضه مقالة داس لكن مقالة ير oo khaybar agteeda ku dhoobay ahayd qoladaas loo soo diray ujeedaduna waxay ahayd muslimiinta iyo khaybar yahuudi joogtay bay xiisadoodu taagnayd oo sanadka 7 dhici doona dagaal abaabul dagaal bay ku jireen nimankii reer khaybar nimankan bani sacd ibn bakr la yiraahdo abaabul ciidan bay sameeyeen ciidan lagu taakuleeyo khaybar lagu taakuleeyo iyagana timirta wax laga siiyo iyaguna ciidan inay u diyaariyaan bay ciidan abaabulayeen garab istaaga difaaca kala qayb qaata dagaalka khaybar la gala tii marka la maqlay khaybar suuri dooni mayne qolyahan wax abaabulaya horta waa in la kala didiyaa way kala farxadaan oo yiraahdaan war kama bixi karnaa iyagiiba waa laga soo leexdayo innagii baaba tooshkiina qabtay aynu gabanno inta ay gabanayaan kuwa nasiib baa la isla tagi doonaa la isma hori doonee markaas baa cali loo soo diray inuu kala cayriyo qoladaas wuxuu yiri fashattata shamlahum isu imaatinkoodii iyo ururkoodii oo dhan buu kala firdhiyay shattata waa kala firdhiyay waay fiix buu ka kala siiyay ninba meel buu ka tuuray wa ghanima 500 neef oo ari ah oo geelan leeyahay ilaa 2,000 oo ari ahna uu ka soo qaaday wasalima nabadbuna wa ghanimu helay wasalima nabadbuna ku soo noqday qof xabad kama xaganin firxadkay firxadeen te markay nafti ma dhaxoolii waa laga cararay 2,000 oo ari iyo 500 oo geel uu ka soo kaxay nimankii waa caydhoobeene waa inay dagaagaan dagaag ma taqaanaan wala dagaagay ma taqaanaan يا قحواي القحوة لحقة عصب واجي هره dadku markay abaar ku dhacdo ama colaadi ku dhacdo ama yaciidooban ay meeshan ka tagaan qof walba halkuu higsan karay higsado hada waa la qaxay baa la dhahaa waagi hore waxa dhigi jiray waa la dagaagay marka way kala qaxeen way kala firxadeen nin walba meeshuu carari karay buu cararay dad badan baa xoolo beelay inay soo kabtaan oo is urursadaan wili waa cabsanayaan haday xoog isku urursadaan meel in qolo kale oo kaliisa dul degto waa la cabsanayaa khaybar garabkeeda laga baxay marka cidii garab u noqon lahayd baa laga saaray meesha wa fi ramadaan min hadhihi sana bish shacbaan buu nastay ninkii odayga ahaa ee kaanada hay sariyatu zayd ibn haritha radiyallahu anhu ila ummi qirfata binahiyati wadi alqura halkii ay waaga dhaweeyta soo aadeen ee dhaawacu ka soo gaaray baa hadana loo soo diray tuulo ay islaantaas reerka u talin jirtay odaygaada reerka oday u ahaa laakiin iyada inta badan taladu iska haysata la dhihi jiray halkaas uu soo aaday faqatalu wa asaru wa ghanimu wa salimu tii ay sameeyeen dhaawicii ragay laayeen baa rag badan bay soo laayeen maxaabiis badanna waa ka soo qabteen xoolo badanna waa ka soo qaadeen iyagiina nabad bay ku soo laabteen ciidankiisi nimankii aan shalay laynay duulaan xoog badan oo argoosi ay soo qaadeen baa la yiri ciidan xoog badan oo dhowr boqol ah uu watay marka qoys yar oo reer baadiyo xoolo dhaqato iska ah ciidan hubaysan oo dhowr boqol markuu ku soo baxo horeyna ay rag uga laayeen waa un firxad Soomaa nin walba cagahaaga meeshaad ku gaari karta carab bay noqotay wa fi ramadaan aydan wa min hadhihi sanati kamidaha ajdaba an-naas dadkii way abaaroobeen jadban shadiidan abaar adag iyo roob laan badan baa dhacday fastasqa bihim rasuulku sallallahu alayhi wasallam roob doon buu la baxay fanazala al-matar ba soo degay roob doontu waa markii ugu horeysay la jideeyay salaadan roob doonta la tukado banaanka loo baxo sida ciida oo kaleeto go'an la gadiyo labada ragcadood la tukado
dadka loo khudbeeyo la yiraahdo khuduuc iyo tawbadkaan badan hal muujiyo ila aakhiri طبعا shariicadeena roob doontu sharcigu jideeyo waa un laba salaada la tukado iyo in la ducaysto ilaahay la baryo ama iyadoo salaad la tukado ama khudba lagu jiro ama masaajida la joogo ama guriga la joogo roobna si leeyahay labada waay tan ari cadka la qale bariiska cad la kariye iyo kuwan caruurta looxa quraanka inta madaxa loo saaray idinkoo kabala wareega la yiraahdiyo roob doontii sharciga ay ku asmaaha iyo kan wadaadada inta meesha la fariisiyo idinku khalaaweeya la yiraahdo maalmaha kadibna raashinka la isu kaanayo waxaas roob doonta sharciga maaha وفي رمضان أيضا بشهر رمضان ومن هذه السنة كاملة أجدب الناس جدبا شديدا أبار ذاك باكل عضي فاستسقى بهم رسول صلى الله عليه وسلم فنزل المطر رب دون النبي الرب دونيبا إلهي مركب الرب بسيه سبحانه وتعالى وفي شوال من هذه السنة رمضان مكو لما ذا بشي حكتي شوال لقاري وحين كترنا سنة كي اللي حاده كانت وحاهد سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه إلى زارم اليهود فقتلوه وصلبوا زارم اليهود اسمه وحوها لأن حولنا بدن مقعنا دير أباب الدغالنا كتشري وانت عربية وحي قوائل كي تشبشب كاها يسكسوا أباب لي تيبوا النبي زيد بن نكال إلى سريع عبد الله بن رواحة يركوحه ودري استغينا مضح يسوسوا عسيين وسو خارجيين wixii xoolo meelaha ay ku arkeenna way ka soo qaateen iyagoo nabada iska soo noqdeen ninkaana dhibkiisa waa la soo afjaray ninkii far dheeraatay noqotaba waa la jari jiray وفي شوال أيضا من هذه السنة بشاس كانت سرية كرز بن جابر الفهري إذن كي هو قامين الصحابي كرز بن جابر الفهري أها لديه جري والله باتن فردولي أها ما ننتاسو نبي قدري إلى العرانيين كوحدي برعد عرانيين تاهي بالله دري فأتوا بهم وكان أنت سوق بقبتين فقتلهم رسول كوادي صلى الله عليه وسلم لمن كان يوحي هايين لمن كوحو يروان إسلامي مدينة يمادين مدينة هودي إسبدل كذي بعلاش كحنون صدين وحال يستعد وسع علاش يسوع بحسان جيل من نبي مسلمين نبي قولها وبنان كداقة مدينة بنان كذا يلي الجيل لا تشوجا caanihiisii kaadiisii isku darsada intaad ka roonaanaysaan iska caba maalinka dambe ay tashadeen markay roonaadeen ay caafimaadeen bay tashadeen waxay dhawareen geelan ba maandhacno ninkana maandillo ninkii geela la joogay way dileen indhahana musbaar bay kala dhaceen geelina way ka haysteen warkii baa nabiga soo gaaray ciidan 20 ah buu diray oo fardoolaya ka daba tago soo qabto tugta khayminta nimankii waxa kaloo raacay nin la yiraahdo Salamat ibn al-Akwa oo fardaha ka dheereeya saxaabi Salama la dhigi jiray magac la yiraahdo ba fardihi nimanka cayrsanayay intuu orod ka dheereeyay oo nimankii halkay marayaan iyo intii soo ogaado orod soo kala jireeyay oo ka hor yimid buu sheego halkaas ay marayaan waana inta waxaasayna wataan buu yiri marka rag waa jiri jiray waagii hore fardaha ka dheereeya أنا طبعاً ما قرنا يقف فرس كدير يا مارك لكن نين وضيعوا سديت مياه كوسو قريبة وحلي يقولين كان فرس كدير يا فيتين بالوت تجابين شري فرس كيفيتين أرد لأك يا فرس دير يا وهان شري فرس كلا قدرنا يو لكن اللي تجابين يو أرد بدأ هاي نين كانوا لؤر تمي شري مركا رجاسي نمك على السوق بقبتي والله كان النبي عليه الصلاة والسلام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم لقيه قعموا يصدعوا قوي إن دهنا مصابير بكلا دعين صومها يقول نول بمصابير لقلا دعي ما يلقى حبور أذقنا والوجود هذه بينا لما سينكر عليه سيوع عبادين بقوة نفقهن وحالي وعقابتي يقول كيد النبي مريضت وجزاء سيئة مثلها صومها يساو دلينكي حولنا يكون عافى معدنا إسلام نمدي ويكن نقدين ويردوبين حولنا وين دعين أحد يجيب يتشبيين نكي قال اللي تشوين السحن بيودلين أبال كذا لمريه حلقي حجاج بن يوسف اللي يرادو بانين بدنا هاي سجنا مركا قاركو حادث دها
Soomaalidu shuu xajaajo kale way u baahnaan lahayd ninka soo istaagay yiri weeye dadkii intuu fiiriyay ya ahlal Ciraaqi Ciraaq nin kacdoon badanoo dib badan bay ahaan jireen salaad jumcuu yimid afku soo duubtay minbarku iskaga fadhiistay si khudba looga soo ninka uu iska fadhiyo afka u dooban afka hoosta iska kan muxuu war mid jinni waxba hadli karin bay noo keeneen isaga ilaahay Allah marraba uu istaago wuxuu ya ahlal Ciraaqi ويا أهل الشقاق والنفاق ولقين فلاقا نمية منافقنما الله هيدين يقول أمير المؤمنين عيدا كي رقي باشا وشري فلاره بكو عبري وهيستيبوا وفيري تأو خرد وهو أضك بوراديو أنا ويسوه لي حق إنه يسوه طوري إلهي بان قد دارتيه مدح يبس لاضي وإن لقرر ربان الكاون madax badan oo bisilo in la gooyo raba baabka bislaato waa la goraay wuxuu waxa ilaahay daaran ku maray albaabka ka baxadaan idin dhaho qofkii ka baxa waan dili dambi kala ma ugu hada hadii rida mara jidka mara aan idin dhaho qofkii jidka ka leexda waan dili madaxan gooyn hadaydan toosin waa arki doonta waa inoo sunnahay buri waayaad barateen ninkaas baa lagu eedeeyay وأنا أدق دتك أودله أنا سبني مالك رضي الله عنه وأرضاه وسوق بوجا مالنا أنا صو حجري نبي محمد عقابتي وقت كيده ودد مري هرت محي هاي كون هو شيء مرك قلنا صيحين مساجو كيستاج مرك وحي دهان بولي حجاج با وحقابه وحيد وريا ما أنا ولي جاري تونبي ورق مري ما أنا ولي جاري ولي ما أنا جاري تاسان صو وضع ولي رق بانسال كامرين دونا لكري لا يهاي نقنقتooda ay badatay marka dadkii marar la edbiyo marka nimanka curaniyiintu waa kuwaas وفي هذه السنة إصلا السنة كان لحاد وقبل صلح الحديبية هشيسك الحديبية انتو سندعين كانت وحاها سرية الخبط أما سرية سيف البحر سيف البحر بدأ حيبت هذا وهي خبط كوحالة إلى هذا geedaha midhaha ay bixiyaan ee daata la yiraahdaa Soomaalidu abqa iyo waxay yiraahdaan maaqaan waxayna ahayd ala raajix sida raajixa waxa madax ka ahaayo wata ciidankaas Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu warda ila 300 bayhan ciidanku dagaalyahan ciidanka waxa kamid ahayo ku jiray Umar ibn Khattab baa ciidankan kamid aha madaxa ciidankuna Abu Ubayda ahaa waxa loo diray qol reer Juhayna ah oo xeebta badda degana marka sariyadii way gaajoodeen raashinkiina uu ka dhamaaday markay naftu qabatay geedaha midhihii ka daatay oo khabat la yiraahday cuneen oo naf ka raadiyeen marka ciidankii sayful bahri xeebta kuwii loo dirayna waa la dhahaa kuwii abqada cunayna waa la yiraahdaa isagoo hadda khabat buu ku magacaabay xagga xeebta u dhaadhaceen waxa ilaahay umbada uga soo saaray bahalay ku sheegaan kutubtu in la dhihi jiray cambar waqtigaas kiiba iska dul degeen ilaa badda waxeedu alxillu maytatu waaye banaanka uga soo baxay oo baqtiyay bay cuneen bilku dhawaad bay deganayeen ay cunayeen ciidanka 300 aha waa lagu wada cayilay meeshii waxay yiraahdeen markii dambe baanu soo qaadnay bahalka weynankiisa intuu la ekaa lafihiisi feeraha godna baanu saa u istaajinay lafti awrkii oo wiilkii saaran yahay baa lafti hoos maray oo taabanin xayawaanka inta la ekaa weynankiisa feerihiisi saa loo istaajiyay awrtii iyo raggii saaraaban taabanaynin hoos maray waxayna soo sahaydeen iyagoo nabadana way soo noqdeen qoladaas la yiraahdaa sariyatul khabat ama sariyatu sayf al-bahri wa Abu Ubayda hogaaminayay radiyallahu anhu warda وفي هذه السنة بي كانت هي سرية بني عبس إذن كريب بني عبس لقى حلي على الغالب سيدا بدن إذن كان ريب بني عبس الله مدرينه إذن كان الله دري هوشة ضمان توت بأسكر رأسها ريب بني عبس قول لي كدشان وحين نهيد نبي وحاسو قال صلى الله عليه وسلم سفر قريش لهذا هايو
ka soo adeegtay shaam oo badeecad ka buuxda iyo dhar iyo wax walba ka buuxa ayaa halkaa maraysay reer bani cabsi buu u diray iyagiiba aaday iyagiibaa soo bililaqaystay soo qaaday wixii ay ka soo heleenna keenay nimankii Quraysh ahaa meel ay ka soo adeegtaan iyo meel ay wax u dirsadaan waa waxa ku qasbi doona inay heshiiska soo socda galaan ونمي أن نبض قال يرهدان نبض ده وحي كدم بينا دي وابلغو كلا تجي دونا وفي ذي القعدة بشي ذي القعدة كوية طبنادة من هذه السنة كمدة يكانها صلح الحديبية هشيسك الحديبية كدعي وكان فتحا فرس الله المسلمين تأفروا مبينا عد بيهيد ذلك الحديبية وحوها نبي عليه الصلاة والسلام يا الصحابة دي سوكون يشم بقله وعيدنا يسقوا وته أيو مكسو عادي وصو عمريستي عمره سو عادي حديبية مركي مريان حديبية هدا هدي الحج كأله دينجيود آدانا ما تكتين جدا مركات كبحدان مكان كسعتان هل كحرم كلاجا قالوا الكنترول كدت كلاجو بارا ويالو الشميسي اللي يراهدو بيلاس منطقة أكتادته مال العيال البيئة كويلي markii inuu soo socdo nabigu la maqalay jidka Madiina maaha marka dadku waa laga soo yar leexan oo jidca jidaag baa laga galay Xudaybiya marka la yiraahdo bay jidkii Makka u fariisteen iyo Madiina u dhaxeeyay ciidan dhigan oo ka soo wareegayo Xudaybiya markuu maqarayo ay maqleen halkaas hadana ciidan soo dhigan nabiguna waa degay sallallahu alayhi wasallam wada hadal baa bilowday nabigu wuxuu yiri aan wada hadal la yiraahdeen nabigu wuxuu damay Umar inuu diro Umar wuxuu rasuulka Ilaahay أنا يجدا أنا إني ما كان واسكو هذا ضجنا هاي إسلامنا كيني كرنو ننكرر بدنا وخد شيء نتشوغان إستغنا هذا إن أقدت سنين إجانا الدبيعات قبو وضدك وحصول صولين كرا وعثمان دير بير نبي عثمان مدري مكور داعي وعمريستي سوق وحاسوق شيء عثمان اللي دلي قضب كسر السعودة ما كان داعي والنبي saxaabadii oo dhan buu xiri ballan baynu galeynaa haday arinta run noqoto halkeen ugu horeysaynu kaga bilaabi nin intuu inaga nool yahay dagaalka waynu wadi shaqadu laakiin been baahay kadib halka Quraysh way timid wada hadal baa bilowday wada hadalkaasi si aad la yaab u leh buu dhacay Quraysh way tashataa nin baa wuxuu yiraahdaa aniga u tagay daaya nabigu dadka waa yaqiinay rag yaqiinayna waa la socdeen Quraysh oo qabaa'il badanna way isugu jireen nin baa la soo kaxeeyay nin baa soo baxay odayaashii kamida waxa rasuulka Ilaahay waa soo socda wuxuu yiri yaa soo socda waxa yiri odaygii hebel ahaa waa soo socda wuxuu yiri odaygii hebel ahaa hadduu soo socdo dadku idinku dharkiinina waa soo ma qabtaan muhrimiin way nabiga saxaabadu soo xirteen dil xulayfa Madiina agteeda ka soo xirteen awrtii geeli calaamadaysnaa ee Kacbada in lagu qalay rabayna wada istaajiya idinkuna labay kada ku dhawaaqa buu sahebel maaha sayeela markay ku dhawaaqeen ee uu soo istaagay hadal kaleba ma gelina wuu isma jiray war dadkan beedka Ilaahay soo maxaad ka rabtaa buu dadka sii daayay ninka isagu sidaas oo la noqday waxoogay markay joogeen nin Kurz ibn Hafs la yiraahdo baa la soo diray وحالي رسولك إلهي مكرز ابن حفص بأصوص سعودة وحيولي خائن منك صوص سعودة وخائن شيء دانه هذا الكنا قاعد كي كادن قيل الله ما كعنن تلبيان الله ما قادن الساقي واجي ميدو ولا اسمري واي وحوي هذا كمركو السعودي حيولي محمد وحان كل السعودة الشعبة ميلها لقسو أروري waxa ilmaadeerta ay jifo kugu dagaalamaysa jirin dagaal haduu dhaco way ka kala cararayaan Abu Bakar baa markaa meesha taagan Abu Bakar baa xanaaqay marka wuxuu wariyaa tuugiyo ma anaga nabiga ka cararayna khaainkan laga tuugsanay uu fiiriyo waa yiri ninka hadalka leh Abu Bakar baa leeyahay wuxuu yiri abaal horada igu lahayd baa jiray hadda sanabaalka ahay waan ku jawaabi lahaa adu ninkiina gadoon markii dambe Mughira ibn Shu'ba adeerkii oo odaygii reer Thaqif baa yimid
nabiga korkiisa waxaa taagan oo waardi ah Mughira ibn Shu'ba taagan duqan adeerkii ma arko Mughira ibn Shu'ba wuxuu sameeyay baa jiray isagoo safar la socda bay la qumaraateen oo islaamo nimankii islaamkii kala hadlay way diideen iyagoo seexday buu intuu isaga wada dulboodo madaxa guray buu xoolihiina ka kaxaysto Madiina iska xariiriyay nabigu wuxuu islaamku aan ka aqbalaynaa xoolahan laakiin oo shaqo kuma leeyin adu meeshaad geenaday ku jirtaa xoolihii iyo makti ragii duqal adeerkii bixiyo laga qaaday duqo markuu oogay xaq inuu jiray laakiin raggan inuu la socdo meelaha taagan yahay mooga wuxuu isku dayay nabiga garkiisa inuu taabto seefta dabadeedii uu gacanta kaga dhufto garka nabiga gacanta qurun kale ka duub ku yiri iska xoqday duqiyo cabaar markuu jiro hadana la qacab wadana ka sii war waa ayuu yiri ninka u falay waa Mughira ibn Shu'ba leeyay Allah war ma khaainki aan magtiisa bixinayay kada ka soo cali shakada ka bax markii dambe waxay soo direen nin la yiraahdo Suhayl ibn Amr nabiga waxa la yiri Suhayl ibn Amr baa soo socda wuxuu yiri ma hubtaan ha Suhayl ibn Amr baa ha heshiisiyo nabad bay Quraysh rabtaa wali haday Suhayl soo direen niman wax lagu heshiiyo oo wax la isku ogaado oo eray oo meel ku go'an hadday ka dhabtay in heshiisi wada galaan intii hore oo dhan lugooyay ahaayeen Suhayl waana nin wax ka go'o waana nin hadalkiisu meel maro waana nin heshiis la wada gaari karo yiri hadday Quraysh ka daacad tahay buu wada hadal iyo heshiis la gaaro heshiiskii waxa lagu gaaray muslimiinta qaarkood aad uga biyadiideen heshiiska waxa qodobadiisa kamid ah hadda inay noqdaan laakiin sanadka dambe ay soo umreystaan kow inay 3 maalmood kaliya ma ka joogaan markay soo umreystaan ka badan ayna joogin 3 inayna hub iyo waxba la gelin 4 muddada inta u dhaxaysa in heshiisiya nabad la ahaadoon la isdirin oo la isdhaxmaro muddo 10 sanadooda oo la isnabad geliyo waxa kamid ah in Allaalay ninkii muslima ama muslim ahaayo Quraysh ka cararo baxsada oo xagga taga in la soo celiyo ki xagga iska soo dhiibay muslima in la soo celiyo Quraysh iyo dadkiisii haday iyagu rabaan loo soo celiyo dawladaha dadka isu dhiibay ma aragteen heshiisyada la galay iyo labada dawladood heshiis baa ka dhaxeeya in dadka soo cararay la isu soo celiyay hadda deema bilaabanin qaab caalami baa laga dhigay wax wixii soo jiray weey ummadaha macaamilaya ummad xagan ka cararto xagan carar gasho ay gali jirtay dhinaca kale cid allaale cidii muslimiinta ka soo cararta inaan la celinaynin lama celinay kii muslimiinta ka soo carara kii muslimiinta xagga u cararana waa la celin sidaas lagu saxiixay halka Umar iyo rag uu ku jiray xaqiiqi waay nabigu u yimid rasuulka Ilaahayow Kaabada waa tagaysan soonamada dheheen ha laakiin ma sanadkan tagi baan ugu koori maya Ilaahay soo muslimiin ha soo dadka naga dhinta janno gali maayaan ha iyagu soo gaala ma ha wixii saa kaga dhinta soo naar gali maayaan ha send heshiiskan dulligaas aan u aqbalaynaa heshiiskan waa daadnada lagu soo celinin dadkiina loo celiyo kooda mushkiil hal celiyo heshiiska dulligaas aan u aqbalaynaa wuxuu Umar anu rasuulka Ilaahay waana rabbina khilaaf maayo sidana dani ku jirtaaye sidan yeel uu ka soo tagay Abu Bakar buu yimid wuxuu Abu Bakar Sooleeyma dhin sanadkan waa tagaysaan ismooga Abu Bakar iyo nabigu wuxuu yiri ha laakiin ma hadda tagi baa lagu yiri xajka waa tagi baa lagu yiri la taqulna masjid al-haram baa lagu yiri sanadkan tagi baa lagu yiri kaasoo maya sidoo kale tuu yiri wuxuu warniyo rasuulka Ilaahay isaga inaga ogeey sidii la yeela qaado adigu heshiiskii waa la galay waxa la yiri hal xalaal noqdo timahana hal iska xiro saxaabadii niyad badan iyo moral badan bay arrintii ku noqotay nabigu amar buu soo saaray wuxuu yiri timaha la xirto wax isla qaajiya la waay watimii xira mar labaad buu ku celiyay wax isla qaajiya la waay oo timii xira soo baxay khaymadii uu deganaa buu iska galay waxa joogtay Ummu Salama radiyallahu anha wardaha safarta nabiga la socotay wuxuu Ummu Salama ay dib ay haystee xaaladana taagan bal tari Soomaalidu haweenkooda qaar way la tashadaan laakiin haddana inay taladeedii qaateen way isdiidsiiyaan
ninba wuxuu ugu yiri xaaskaygu qofaad u aqli badan weeyo markaan rabo inaan la tashadana agteedaan ku calaabu yiri markaasay dhahdaa wili ma yeeshi taladii markaan rabay ka helo anaga musbaan dhahay laakiin nabigu ma yeelin sallallahu alayhi wasallam nabigu sidaas ma yeelin wuxuu yiri bal ila tali musallam waxa rasuulka ilaahay dadku xoogay way ku cuslaatay inta shib dhahdo oo u yeerata qofkii timaha ku xeeri lahaa adu bilow adiga iska bilow marka timaha xeerato iyaga wad xeeran doona sidii buu yeelay ragii oo dhan waa lagu dareeray oo timaha la xirtay talada maalinka lagu badbaaday Soomaa laakiin oday Soomaaliyeed wuxuu leeyahay ka soco maalinka Salama radiyallahu anha wardaha taladeedaas Ilaahay muslimiinta ku badbaadiyay dagaalkii Xudaybiya saasa lagu heshiiyay 10 sano bay dagaalkii Quraysh muslimiintu in la kala nasto laakiin waa sanadkii 6 2 sano jiri doona ama 2 sano wax dhiman ayuu jiri doona Quraysh baa jabin doonta burburintayda dagaalkii dhacay marka la furan doona marka lafteeda la qabsan doona laakiin hadda heshiiska 10 sano baa heshiiska lagu galay وفي الحديبية انت اللي تشوغي لفتيدا ايضا كانت بهيد بيعة الرضوان بيعة إلهي ذاكو كغرى للنقضي تحت الشجرة قيد هوستيدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا مركي عثمان والد دليل ليري والنبي قبلاني ينتو استاقي بوليري أنه قعنتي يسقلينه waxaan u noolaanayno ama aan u sugayno ama dambo oo na dhaxmaraya ama wayna dhamaynayaan ama magaalada ka qabsanayna kadib Uthman oo socda yimido sheekadii been noqotay bay'ada waxa lagu galayaa marka calal mawti waay markuu dagaalku yimaado markii banaanka la joogo qof walba waa faalan yaqaan dagaalka qof walbana waxa weeye indhaha waa guduudan yaqaanaan xididada doonta ku yaalay hadalkuna suu xamaasaysan yahay way kici yaqaanaan laakiin ma la soo gaaray baasha dhicitaankeedii ma la soo gaaray yaa saatir waay isli anu waxaan ku aqaan 3 nin laga yaabo 3 nin haddaan magacaabo in badan idin kamid inay wada gartaan ninkaan arkay ee dagaal iyo jihaad dhiirigelin ka sheekeeyay ugu badnaaya dadka xamaasa galiyuu ahaa qarni waqti hore sagaashabeeyadii weligiina xabad ma rido xaggeeda ma dhaqaaqo nin kalena wadaadda dagaalamaya intuu yimid wuxuu yidhi niman yahow jihaad baan rabaa jihaadka fadligiisana waan oga bahasho i fiirinaysa xabadna ma aadi karo saana xabadna ku aadin mujaahidna ku noqday ii sheega waxay way fiican tahay alaabtana ilaali awrtana foofiyo soo xare geela noo raac awrtan la raranayo baadiga raacitaankeeda ku ogna ninna qorigii uu hayay markii xogay soo dhawaaday dagaalkii gacan buu ka yar xanuunsanaaye wuxuu wariyaada gacan baan la hiisoo moogidin buu qoriga ku qaban kare marka markay timaado markay dhab dagaalku u yimaado waa nabiga nuu dhihi jiray laa tatamannaw liqaa alcaduwi ina cadow isu timaadaan aad ha u doondoonina ina carrataaba laga yaabo mugdi adkaysan doonta mooyi ilaahumaan mar arko ilaahumar yaa igeeya aad ha u daydayanin faidaa laqiitumuuhum fahbutuu hadday ku qabsatana adkayso nin sariir ku carariyo soomaaliyana waa aan tegay askart baa qasab la isaga dhigi jiray 88 baan halkan ka tagay 1988 xawar baan ka gudbay gobolka Hiiraan qaxootiyadii habaan tagay saadan habeenkii u tagay baa la yiri salaada subax waa la israafayaa askar baa la iska dhigaya dagaaladii Hargeysa waqooyi baa socday askar baa qasab la isaga dhigaya diina habeenimo cararay noqoto aan ka baxno oo duurka habeenkii barino waxay salaad subax ciidan dhan baa dul degay dadka qasab baatimaha laga xiray askar laga dhigaya waxay igu yaabadnayd rag intay diracyada xidheen musqulaha galay
waxa taariikh uu yeeshay balku dagaal markuu yimaado cala al-mawt baa lagu ballamayay dadkii baycada waa galeen hal nin baa diidayo awr caso uu lahaa ku dhuuntay al-Judd ibn Qays la dhihi jiray ninkuna munaafiq buu ahaa halka nin baa baycadii ka haray وفي مرجعهم صلابت كي جدك سو هيين من الحديبية عند الضجنانة تولد الضجنانة يعني markay marayeen نزلت سورة الفتح baa ku soo degtay على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناه المسلمون مسلمين تا u tahriyaday inna laka fatahna laka fathan mubinan heshiiskii ay dadku diidanayeen baa fatx ilaah lagu magacaabay muslimiintu xorriyad bay u heleen diinteena sheegaan maka ay tagaan qof walba la doodaan guri walba ku akhriyaan dariiq walba la istaagaan iyagoo cabsanaynin nabigu ummadihii kale waqti u helay dadkii ugu badnaa labadaas sano ee xigtay islaameen qoys kasto quraysh ahana qayba islaamay qof walba islaamkiisu banaanka la soo baxo xorlaya waxa ka fiican baa yaa helaba وفي هذه السنة سنة كاس بنزل سودغي فرض الحج حج واجب لسغا دغي وفي هذه السنة سنة كاس بحرمت المسلمات قبلها مسلم كان لغا حارانتنيميي على المشركين رغا غالدا ولا تنكحوا المشركين لي وفي هذه السنة سنة كان وارسل رسول كدري صلى الله عليه وسلم كتبا قران يا وراقه الى ملوك العالم بقرد ادونك كجيري يدعوهم فيها ugu yeerayo الى الاسلام boqor kasta waraaq buu diray haduu Masar joogay haduu Qudus joogay haduu Iraq joogay haduu Qaysarkii ahaa nin walba nin baa loo diray aslim taslam yuutika Allah ajraka marratayn qaarkood lagu leeyahay ya ahlal kitaabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynakum lagu darayo وفي هذه السنة سنة كاس بكسفت الشمس قرح مدوباتي والنبي تكذي صلاة قرح مدوباتك وفي هذه السنة سنة كان بومات دنتي سعد بن خولة رضي الله عنه في الأسر محبوس نمو كل انت بمكة مهاجر بوها والله قبتي قال بيقالوا قواتي مكة لغو حري مكو كجيريودي مهاجرين تنا ما ينتشعلان شرين مكان يكو جيريودانو وابا لغا حارانتنمين مهاجرة إنه مكدب ودقو والو ديدي وفي هذه السنة قدبك قدام بي سنة كان بيقدم يمادين سوق النبي يمادين وفد جذام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الريال جذام ورير يمن هيد با النبي يمد رفاعة بن زيد الجذامي با ارجيوها نبي وراق بو قري هشي ددكي uu gaarsiyo reer judaamna ninkii markuu noqday way wada islaameen halkaas ayaynu maanta ku deenaynaayo halma aadaankii salaada jooga waqtiga dambe la isu soo noqon idaaradii maamulka sheegi doono hawsha iyaga iska labaanu malay bahsantii jazakallahu salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh